kasoo qaad sheekadii qabiil waan cadal baa hirgashay dhalinyartii waalidkii baa isku hor yimi aakhirkii waxay noqotay in dhalinyartii magaalada xamar intay isku soo oodaan meel gooniya ee dhahaan anigu qabiil dhan waan ka baxay anakaan isku filan laakiin muddo ka bacdi markii wadankii dhibaatadii sii badatay waxay noqotay inay qoyskan ka dhoofaan muqdisho ee yurub ka daydadaan magangeliyo immigrationkii markay soo galeen waxa lagu yiri qolama tihidiina waxay dhahaan anigu qabiil dhan ma bahaysanaba oo waxaas kuma jirnaba markaasaa lagu yiri magaaladee baa ka timaadeen haddaba waxay dhaheen muqdisho waxaanu ka nimaanay xamar xaafadda weli bana markii ay interviewga kasoo gudbeen oo basicgii sheegeen waxay noqotay haddana in interview cusub lagu qabto oo lagu hubsanayo inay yihiin Soomaaliya inay xamar ka yimaadeen interviewga waxa lagu yeeray nin Soomaaliya oo turjumaana oo warkii interviewga la wareysanay dhan qorqoraya warqadii laga wareystay wixii la soo qoro dhan aakhirkii ninkii turjumaanka meesha la dhigeysanay lahjadoodii magaaladii inay Soomaali yihiin ayaa isagana warqada u gudbiyay ninkii go'aanka gaarayay wuxuu ku soo qoray meesha in la negative la siiyo oo loo diiday in waddanka soo galaan la tarxiilana sababtoo aysan ahayn reer xamarba qabiilkooda garan mayno may sheegan cid ay yihiin wanaga qarsadeen Soomaaliduna qof walbo Soomaaliya qabiil buu leeyahay laakiinse kuwan qabiilkooda way qarsadeen waxay kaliya ku abtirsadeen magaalada xamarna anaka ku abtirsana saa awgeed hala celiyo qoyskii maalintii xamar ka dhoofayeen qabiilada dhan sii wada nacladeen oo dhahaanakaas ku filan cidna ku abtirsan mayna magaaladeena uma sheeganayna ayaa soo laabtay kala soo tarxiilo ilmeynaya oo waliba oo hin ku darsaday inay warqad soo taagaan dhahan qabiilo na dambi dhaaf khalad baan ka galnay dib noo saamaxsan ugu soo biirno marka wala sheekada